Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu asxaabtayaga soo dhawaada. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena ka xuruu fakhriga. Maanta eebaweynaha duu idma waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka ee leedahay kabsar caleenta. Kabsar caleenta oo ka mid ah geeda aan wada garanayno loona isticmaalo in lagu carfisto cunooyinka kala duwan. Kabsar caleenta waxa ay ka mid tahay qudaarta dalka Soomaaliya lagu beerto. Taasi waxaa dheer kabsar caleenta waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada halista ah. Kabsartu waxa ay ka mid tahay qudaarta cagaaran. Kabsarta xididkeeda waa brown. Jirida kabsar caleenta qaybteeda hoose waa cadaan. Kabsar caleenta dhadhan ahaan waxay iskugu jirtaa dhanaan iyo macaan. Kabsar caleenta waxa ay leedahay maadooyin loo isticmaalo caafimaadka. Kabsar caleenta waxaa lagu daweeyaa cudurro badan oo halis ah. Maanta inaga waxaan ka hadli doonaa 7 cudur ee halis ah oo lagu daweeyo kabsar caleenta. 1. Caabuqa. Kabsar caleenta waxaa lagu daweeyaa xanuunada ay keenaan caabuqa. 2. Kabsar caleenta waxaa lagu daweeyaa sunta soo weerarta jirka. Cudurka 3 ee ka hadli doona maanta waxaa ka mid ah dheefshiidka. Kabsar caleenta waxa ay hagaajisaa ama wanaajisaa dheefshiidka. 4. Miisaan dhimis. Kabsar caleenta waxaa loo isticmaalaa in lagu dhimo miisaanka maxaa yeelay waxaa ku badan maadooyin loo yaqaan kaloriinka. Cudurka 5. Kolestaroolka. Kabsarta waxa ay hoos u dhigtaa kolestaroolka midkiisa halista ah. Cudurka 6 ee maanta ka hadli doona waxaa ka mid ah beer xanuunka. Kabsartu waxa ay hagaajisaa caafimaad siisaa beerka. Waxayna u wanaagsan tahay caafimaadka beerka. Waxay hoos u dhigtaa dufanta soo galaysa beerka. Cudurkeena 7. Difaaca jirka. Difaaca jirka ayay xoojisaa kabsar caleenta iyada oo hoos u dhigaysa bakteeriyada, fayraska, infekshanka soo weeraraya jirka. Faa'iidooyinka ee kabsartu u leedahay bini'aadanka way ay badan yihiin intaanu kuma soo koobi karno. Balse waxaan faa'iidooyin qayb ka mid ayaan ka soo qaadan doonaa. Daraasad la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in kabsar caleenta jirka ay xoojiso taasoo ay ka difaacayso duqnimada. Jirkaagana safti ay ka dhigayso. Waa haddii aad u isticmaashid cabitaan ahaan iyo in aad in badan isticmaashid cuno ahaanba. Waxa kale oo u isticmaali kartaa in aad ansalaatada aad ku darsato oo sida aad u isticmaalayso ansalaatada aad u isticmaasho. Intaa waxaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii ku saabsanaa ansalaatada. Intaa mid lacana ku kulmi doono waxaan idinkaga taagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah. Hanaga hilmaamin share, commentiga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin.